qofka caadiga ah markuu eego wadciga muslimiintu ay ku jiraan oo ah dhaqaalahoodu inuu dambeeyo siyaasadoodu inuu dambeeyo maalku in laga maal badan yahay hubka in laga hub badan yahay niyad jab badan baa dadka qaar ku abuurma laakiin dhan kale marka la eego waa ummadda ugu da'yaree dunida ku nool that means Soomaali maanta haddaynu eegno waxa laga yaabaa boqolkiiba 70 inay 30 jir ka yartay that means waa xoog soo socda sayidka imka haddaan sidaa u eego waa cirra laba qof iyo laba laga yaabaa inaan arko macnaheedu waxa weeyaan waa ummad dhalinyaro ah Soomaaliya qodana ma aha waa caalamul islaam oo dhan baa noocaasiya cagsiga haddaynu galbeed iyo bariba eegno waa dawlado gabgaboobay iyo dad gabgaboobay iyo maskax gabowday da'yartoodu da'weynta ka badan inta benshanka galaysa ayaa ka badan inta soo galaysa shaqada that's why in badan qaxoonti u qaataan qaxoontigani waxa la rabaa in lagu buuxiyo meeshii dadkii shaqada galayay waayo dadka ka sii baxaya benshanka noqonaya ka badan da'yarta shaqada soo galaysa idan haddii xagga bini aadamka laga eego caalamul islaami waa dhalinyaro waa dad xooggan oo mustaqbal loo soo socda haddii laga eego dhulkay degan yihiin waa dhulka dunidaba isku xidha cidda dhulkaa xukunta dunida xukunta waxay yidhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta 5-6 kanaal ee dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaalaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ayuu man gacanta muslimka ku jirin ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Basfar ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaas xoog ku jooga si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la riday heshiisyadii laga galay waxa kamid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhayn 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu u tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70-80 wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dago Kazakhstan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dago ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala caalamul islaami wuxuu ka mid yahay wadannada aan kham maada kham loo soo dhoofinin ee maadada khamka ee wadannadooda taala wax kastaba inay helayaan anything loo baahan yahay dhulkoodu inuu leeyahay oo tasniic ama industry-gu u baahan yahay haddii wadanku dhalinyaro uu yahay haddii mowqicu ku dhaca uu yahay mowqac dunida maamula haddii energy-ga dunidu gacantooda ku jiro hadday maadada khamka ay helayaan iyagu haystaan waxa ka dhiman oo kaliya cidii isku hagaajin lahayd الحنكة السياسية قائد كيلها صاحب الرسالة متكمدة قرى أقويها كرر البيت كوحوليه وحقورة نمكن بولي وين إنه حق إستجا إلى لنا ويا وحقورة قدماني وسلاح الدين عصبة صباح بولي إن رسالنا الستة حنكة سياسية نله مبادئنا الرميسن إن maamulna garan kara iyo si dad loo hogaamiyo caalam